barnaamijka socdaalka aqoon maal waa barnaamij wacyigelin ah oo adeega aqoon maal uu kaga qayb qaadanayo kor u qaadida wacyiga guud ee bulshada. barnaamijkan oo shirkadda Telesom ay ka daahfurtay magaalada Hargeysa ayaa waxa lagu bilaabay qaar ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa. barnaamijkan oo ah tartan aqooneed ayaa waxa lagu weydiin doonaa ardayda weydiimo laga soo xulay qaar ka mid ah barnaamijyada waxbarasho ee adeega aqoon maal oo kala ah layliye, istijaabi iyo afbarasho. barnaamijka ayaa waxa lagu bixin doonaa hadiyado qiimo badan oo kala duwan. miyaad hubtaan ina garatay hadiyada barnaamijka socdaalka aqoon maal bushqadaasoo alaab kala duwan ay ku jirto waa kow. jawaabtaasina sidaasi ayay sax ku tahay. waxaa ku jira barnaamijka aqoon maal 3 barnaamij oo arday kasta oo wax baranaya anfacaya. 3 barnaamij mid waxa la yiraahdaa istijaabi, aqoontaada tijaabi. waa barnaamij loogu talagalay qofku dhinac waa entertainment, waa madadaalo, dhinacna waa aqoon kororsi. marka waxaa laga yaabaa waqtiyada aad jaaniska hayseed meel iska fadhida haddii aad mobilka gacanta ku dhigto in aad ka faa'iidaysato su'aalo iyo jawaabahoodii oo qaabkii gameka oo kale u diyaarsan, ama haddii aad applicationada hore u aragteen sida mansayir baxad milyan oo kale u diyaarsan. waxaa ku jira 13,500 su'aalood oo isugu jira aqoon guud, aqoon diiniya, sports iyo dhaqan intaba. barnaamijka labaad waxaa la yiraahdaa layliye, waxaa loogu talagalay ardayda dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare. manhajka aad dhigataan ee manhajkii Soomaaliland iyo Silvaska ayaa waxaa loo diyaariyey qaab su'aal iyo jawaab sidoo u dhan yahayba. barnaamijka saddexaad oo macallin Mustafa Waaban ka sheegay waa barnaamijka afbarasho ama dictionary oo loogu talagalay ardayda inuu ka caawiyo maadaama medium language ka wax ku baranaa uu English yahay, in luqadda Ingiriisiga ardaygu erey kasta oo ka hor yimaada inuu dictionary-ga ka heli karo oo ka baaran karo. 3 qaybood ama 3 barnaamij aqooneed ayaa si gaar ah ardayda u khuseeya. 3 barnaamij maadaama mobilka ku jiraan, dunida maanta aan joognana tiknoolajiyadu ay marayso qofku inuu mobilka la nool yahay. saaka hadda maxaan idin sidnaa barnaamijyadii meesha ku kaydsanaa ba waxaan idinka soo xulay tartanka waxaa la yiraahdaa socdaalka aqoon maal. waxaan ku bilaabayaa ardaydu waxay isugu jiraan waa form 1 ilaa form 4. waxay isugu jiraan sidoo kale wiilal iyo gabdho. intuba markaa inay nasiibkooda helaan ayaa nidaamka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala rajaynaya. ardayga koowaad ee soo kacaya oo wiil ah waa ninkaas ugu hor istaagay. waayahay aan ismaqallo soo dhow. waay magacaaga waa Bashiir Cali Faarax kana tirsan galaaska form 2. waay Bashiir waa fasalka labaad, waxa uu ka qayb galaya barnaamijka socdaalka aqoon maal. su'aasha iyo nasiibkiisa ayaynu la eegaynaa. soo qaado nasiibkaaga. waayahay lambarka ku soo baxay waa lambar imisa? check 12. waay lambar 12 waa barnaamijka istijaabi, waa su'aal dhaqan ah, waana aqoon guud. neef geel ah oo la maalay inta andhadiisa caano uga soo dhacayaan waxaa la yiraahdaa neef geel ah oo la maalay inta andhadiisa caano uga soo dhacayaan waxaa la yiraahdaa xiskin. waa 1. 2 waa magaabid. 3 waa gudlasho. ma kugu celiyo misood ka jawaabaysa? aan mar kale kugu celiyo neef geel ah oo la maalay inta andhadiisa caano uga soo dhacayaan waxaa la yiraahdaa 1 xiskin. 2 magaabid. 3 gudlasho. bismillaah haddaan su'aasha isku daro waa 3 oo ah gudlasho. saxabkaar ma ku degdegteen. waay Bashiir aad iyo aad buu mahadsan yahay. jawaabtaasina sidaas ayay qalad ku tahay, saxna maaha.
marwa iyaduna sidoo kale waxay isku dayi doontaa nasiibkeeda waxaan iga soo bixi doontaa lambar dabeedna su-aasha uga soo baxdaynu weydiinaynaa iyo ardayda marwa su-aashu waxay leedahay waa weel la tolay oo laga tolay qabo waa weel la tolay oo laga tolay qabo magaciisuna waa qarbad qabaal iyo aagaan ama haan waa weel la tolay ka mida weelalka wax lagu guran jiray dhaqanka Soomaaliyeed weelkaasi wuxuu ka tolan yahay qabo marka ma qarbad baa ma qabaal baa mise waa haan waayahay aan ismaqallo ardaydaasi waxay dooratay jawaabta saddexaad oo ah haan magacaagu waa marwa fasalku waa fasalka saddexaad su-aashaas jawaabteedu sidaas ayay sax ku tahay marwa waxay guddoonaysaa hadiyadda koowaad ee barnaamijka socdaalka aqoon-maal sidoo kale waxay heli doontaa oo ay qaadanaysaa adeegyada Telesom mid ka mid ah oo ah telefoonkeeda in loo furo adeega kaafiye muddo bil ah oo free ah oo macal fasalkooda la wadaagi karaan iyo hal bil oo adeega aqoon-maal ah iyo hadiyadda gacanta ay ku haysato saacadeyn ku sameeyayna marwa aad iyo aad u mahadsantahay isla hablaha ayaan mar kale ku noqonayaa ما شاء الله ألف ألف مبروك هاي قرتي waayahay laba hablood waxaa rabaa inaan marka ugu horeysa ardayda saamiya oo su-aasha ku guulaysatay sacbaan ku soorno waxay ku guulaysatay hadiyadii socdaalka aqoon-maal waa kow sidoo kale waxay ku guulaysatay laba adeeg oo adeegyada Telesom ka mid ah adeega kaafiye oo bil ah iyo adeega aqoon-maal oo bil ah labadaasna maanta ay helaysaa aad ma santahay saamiya way soo dhawo magacaaga iyo fasalka tahay magacaaga iigu celi magaca way Cabdiqaadir oo kalsoonidiisa ku soo kacay waa fasalka afraad Cabdiqaadir su-aashan waxay leedahay cadka yar ee qaabka kiishka leh cod weyn bixiya ee awrka qooqani afka ka soo rido waxa loo yaqaanaa tawaad laba doob saddex cawtal gasiir oo jawaabta labaada way jawaabtuna isku day wanaagsan uu sameeyey kadib sidaas ayay sax ku tahay ayay Cabdiqaadir waxa uu helay hadiyadda ordaynaga ortamina sacadka u jima Cabdiqaadir waxa uu ku guulaystay laba adeeg iyo hadiyaddu waa bushqadii barnaamijka socdaalka aqoon-maal oo aynu ku wareejinay sidoo kale waxa uu ku guulaystay maamulada wuxuu sheegay ninkan inuu saxaf yahay oo kale internetka kama maarmee internet unlimited ah oo bil ah oo shirkadda Telesom sidoo kale waxa uu ku guulaystay in loo furo adeega aqoon-maal oo free ah sidoo kale aad iyo aad baad mahadsantahay waayahay soo dhawo way magacaaga marka hore fasalkaaga way ardayda jawaahir oo ka socota fasalka afraad su'aal markaad haysataa waa imisa lambar 13 su'aasha lambar 13 waxay leedahay saanta korka laga saaro awrka marka la dhameeyo saanta korka laga saaro awrka marka la dhameeyo waxa la yiraahdaa
gibil qobtal mise abjad qobtal abjad mise gibil way jawaahir waxay tidhi gibil oo ta koowaad baan isku dayayaa jawaahir oo ka socota fasalka afraad oo ka soo horjeesatay dhammaan ardaydii caawisay jawaabteedu sidaasi ayay sax ku tahay waayahay waa hadiyadii afraad hal hadiyad baa hadhay waa hadiyadii afraad waxay ku guulaysatay barnaamijkii socdaalka aqoon maal sidoo kale waxay ku guulaysatay hal bil oo adeega internetka unlimitedka telesom iyo adeega aqoon maal subscription labada adeegna ku guulaysatay aad baad mahadsantahay inamada way magacaaga abshir fasalkaaga way soo qaada nasiibkaaga abshir waxaa kuu soo baxay lambarka imisaad waa lambar 8 weli waa dhaqan waa aqoon guud way waxaan ku yidhi waa geed qodax gaagaaban oo qalloocan waa geed qodax gaagaaban oo qalloocan geedkan waxaa la yidhaahdaa marayo sogsog mise gocondo maraaga waxaa la yidhaha marayo sogsog mise gocondo way sogsog buu adkaystay waa tii markii hore aad dooratay way magacaagiigu celin abshir oo fasalka koowaad ah waxaan weydiiyey geed gaaban oo qodax gaaban leh oo qalloocan jawaabta koowaad waa marayo jawaabta labaadna waa sogsog jawaabta saddexaadna waa gocondo nasiibkiisa ayaynu eegaynaa jawaabta aad bixisay oo ah sogsog sidaasi ayay sax ku tahay